ba wax ku goostaan wada jir ay wax ku goostaan wada jir aan wax ku goyno ilaahay hadaa ka yaabisiin ifka wax la isku yahay aakhir waxba la isku maaha taa garta dal la hele maanta caruur haween rag ba ka buuxo maanta hadaa la suuqa waa ooyin maanta waxay qabanaysaa bal sheega waxa way qabanaysaa iga dhaa walaalayaal ilaahay ka yaaba ilaahaygiina ka yaaba ilaahaygiina ka cabsooda ifka wax la isku yahay aakhir waxba la isku maaha dadkan laa ilaaha illa gareeyeen muslimnimadii bay dhaafeen markaas inaan iska difaacno maanta dhulkooda kuma xad gudbin maanta waxaan ninkan nagala yaaba ma jirto kuma ku xad gudbinay kuma xad gudbin annaka dhulkeena waa nagu soo doontay marka waa shahiid weeyaan dadkaas markaas inaan garab istaago aan garab joogsado ayaa loo baahan yahay maanta shirkii Aisha cidii u joogtay goobjoog baan ka ahaa si fiican buu dhacay midnimada laga hadlayay inaan dadkaas la garab joogsanayo 100% shirkeeda waxa loo furay ee loo soo abaabulay waa dadka galbeedka city ku nool inaan garab la istaago ayaa loo soo abaabulay marka walaalahayga qaaligaayo garab istaag bay nagu baahan yihiin garab joog bay naga baahan yihiin hiiliyo hooba nagu baahan yihiin laa ilaaha illa allah maxamedur rasuulullah walaalayaal ifka wax la isku yahay aakhir waxba la isku ma wiliga aakhir waxba marka banka qiyaama la taagan yahay ee la qatan yahay ee la qaawan yahay macida wax u qaban waa maya nin walba meeshii naftiisu u ordaya suu badaasan laha markaasi walaalahayga dal la helay maanta caruur baa ku nool haween baa ku nool hawna xariisano dad lixaad la ku nool dad walba ku nool marka walaalahayga gacmo jir baa ku goostaan hawn wada jinaano hadaa qurbaha joogno ayaa hadaan joogno Afrika dal iyo dibadda hadaan joogno inaan soo duubnaa weeyaan dhalinyaradan maanta waxay nooga baahan garab dad maanta dhiman waa dhalinyaro markaasi walaalahayga waxaan la dagaaltamay caanfarno waa dhalinyaro galbeedka city hadaa tihiin oo email qasiin fiidiyoogana daawanaysiin walaalayaal inigna dadkiina hiiliyo hoo la garab joogsada maanta ninkii qori haysan ee dhalinyaro ee dagaalka galeen inuu dhaawaca iyo mawdka inuu ka soo qaado ayaan looga baahan yahay iyo biyaha iyo cuntada inuu qaado weeyaan oo dadka noo dagaaltamay inaan ka dibi tirno ayaa loo baahan yahay walaalayaal markaasi dadka dal la helay maanta garab aan ugu baahin dal la helay sheekadu way badatay dal la helan basiba inaan ninku nigu sheegaya hadaa qurba joogtiin hadaa Afrika dhex joogtiinba marka dal la helay garab weyn ayaa nooga baahantay walaalayaal walaalahayga qaaligaayo kaliya laab baniga salaamin laakiin dadkaas waxaan uga baahin hiiliyo midnimadii aan u tagnay shirka aaway midnimo baan u tagnay inaan dadkeena hiiliyo hoob garab joogsanno yaa u tagnay maanta hiiliyo hooga haddaan naga waayo dadkaasi wala ibr baa laga dhigaya wala baabin walaalayaal garab baan nooga baahan yahay ifka wax la isku yaaqro wax la isku ama taa maskaxaada gali walaalayaal hadda sagaalka degmooyin ku noolshiin iyo gobolka joogtiin maanta dadkaasi waa lafdabar waa deer weeyaan deerkaasi hadda looga hoos qaado oo la jabsho daadku ku soo galay daadkan ku soo galayna waa cadow weeyaan sagaalka degmooyin biki afdan erar iyo magaalooyinkaasi lamid ah iyo gobolka city inta oo dhanba waa la qaadan doonaa haddaan ka hortagayno waa la qaadan doonaa marka walaalayaal han ka hortagno gobolkeena halis buu ku jiri doonaa dadka tikada jiito hor ku nool waa dad lafdabar ah waa dad deer u ah city oo dhan xitaa Djibouti oo ah markaasi caanfar hamigeygu weyn yahay meesha u socto waa meel dheer oo weyn weeyaan walaalayaal ilaahay hadda ka cabsoonaysiin oo na garab joogtiin hiiliyo hoo hadana siinaysiin maanta dadkaasi halis bi ku noolyihiin wallahi la cadiim halis bi ku noolyihiin wallahi goob joog waa meeshaan ku dhalalna weeyaan galbeedka city marka waan garanayna maanta anigu xagan waxa u fadhiyaa waxa weeyaan aan joogo dardaba waxa weeyaan ay shirkii Aisha ka qayb galay haddana xagan baa jooga walaalayaal ilaahay hadaa garanaysiin hiiliyo hooban yaan niga baahanahay inaan garab joogsatiin oo na garab istaagtiin ayaan niga baahanahay walaalayaal ifka wax la isku yahay aakhir wax wala isku hataan maskaxda gashay markaasi galbeedka city cid garanaysa wallahi galbeedka city waa meesha kaliyaata ee ciisnimadu waxay tahay ku tusayso ciisnimada dhaqankii xaw ka nool yahay halkaas weeyaan marka galbeedkaas waxay naga baahan yihiin garab baan uga baahan yihiin laa ilaaha illa maxamed rasuulullah walaalayaal maanta garab baan uga baahan yahay maanta noola waa dhinte maanta dadkaaga dab dhiman weeday cidda kartaada aw halgeemisa u dhimanayso waa cidde wax siyaasad waxba aan ka garanayn iyaan ku dhaxdaalanaa ya marka walaalayaal dadkeenaasi maanta way nooga baahan yihiin haddaan baraha bulshada ka boofino haddaan aan garab istaagno waan nooga baahan yahay walaalayaal xil walba waan baahannahay haddaa qurba joogtihiin haddaa Afrika dhex joogtihiin hadda meesha joogtin joog Yurub America meel kasta joog Afrika joog waan baahannahay mar walba inaan garab joogsatiin waan baahannahay marka garab joogstaankiina waa ku maasantiin dadkiina maanta soo caawinayo aad iyo aad ininka la aantiin wax ma dhaqaaqdeen ayaa leeyahay qurba joogta aad iyo aad ilaahay cimri dheer oo cibaado la caafimaad ilaahay hana siiyo
إن شاء الله قول بيكون ما دونتا لكن والله العظيم والله بنكون دارنا ثم والله بنكون دارنا dadkaasi halis bi ku jiraan in adeerayaal walaalayaal halis bi ku jiraan dadkaasi maanta dal la helo hadaa la qabsado waa meeshii la cundufi iyo kala goynaysa weeyaan meeshaas haday canfar qabsato cundufi dal la helo waa kala goyn ka dhigan tahay hadaa dal la helo la qabsana casbil waa la qabsan tikada laga soo dhacay casbil waa la soo galay casbil hadaa la qabsana biki waa la qabsan afdin baa la qabsan meel walba waa la qabsan erar waa la qabsan gobolka city waa la qabsan markaas dadkaasi waa dad diir u ah ciisaha ku nool gobolka city ku nool wallahi العظيم xitaa Djibouti wadanka ah ayay u yihiin diir u yihiin marka walaalayaal garab istaag baan iga baahanahay inaan garab istaagtiin baan iga baahanahay maanta dad way ku hasuqmeen way ku dhinteen laakiin maanta wallahi billahi dadkaasi waxay u dhimanayaan dadka ka taa ayahooga dambe ka fikirayaan maanta anagu haddaan iskaga banayno meeshaasi oo aan ka kacno ina la gali doono magaalooyinka kartaa la qabsan doono hamiga canfarta inay biyaha erareed ee ku meerato aad ku nasato ka dibadeedna talaabadeeda ay qaado